Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalay meel baa adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada janaalkeena idiis haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar haddaa hore noola joogtayna like iyo share iyo commentiska naga iloowin maanta asxaab badan ayaa waxay iga soo codsadeen inaan kasoo hadlo Canada Jobiska ama job bankiga ee Canada waxaa gurubyo badan aan leenahay gurubyada inta badan waxyaabaha la iga soo codsanayo waxaa ka mid ah inaan ka soo hadlo. You ready? You ready? 3, 2, 1, go! Welcome to the marka waxaan rabaa wax yar oo faahfaahina inaan idinkugu soo gudbiyo qaabka loo kala fahmayo dadka apply gareynayo iyo sidoo kale sida loo galayo meesha la taabanayo iyo waxa aad ku fahmaysid waxaa inta badan dadka localka ah ayaa soo codsada marka dadka banaanka ah ayadana fiirineynaa soo ujeedaan waxaan soo galnay website-ka job bankiga soo galnay ee Canada linkiga saxdan waxaa idin soo dhigi doonaa videogan hoostiisa wax badanna markaas waad ka fahmi doontaan insha Allah waxaan rajeynaynaa step by step noola socon doontaan waxa ka jira iyo sida uu shaqeynayo waa ujeedaan markaas soo galnay shaqooyinka ku jiro dhan wuu noo soo bandhigo ujeedaan dhowr kun oo shaqo waaye marka shaqooyinkan inta badan waxaa loogu talagalay dadka waxaa leeyahay waxaa soo apply gareyn karo dadka Canada joogo oo citizenship-ka ah ama permanent residency-ga haysto oo sharciga yar haysto marka shaqooyinka qaarna wuxuu leeyahay gudaha iyo banaanka waa laga soo dalban karaa oo fursad ay u banaan tahay dadka banaanka jooga oo aan Canada joogin ama wax sharci aan ka haysanin marka si ku kala ogaanina marka shaqooyinkan waa badan yihiin u jeednaahe si ku kala ogaanina marka in fursadan noo banaan tahay iyo sidoo kaleeto inaysan noo banaaneen marka in wax badan laga fahmay u baahan tahay oo u jeedaan waxaanu shaqo ah hata taxi driver kana aan tijaabinayna yaa apply gareyn karo ma jeedaan waan ku dhufanay verified waaye yacni company-gan xayeysiinaya job detailkan waxaa meesha laga shaqeynayo iyo sidoo kaleeto canshuuraadka lacagta lagu shaqeynayo saacadiiba $19 camal waaye permanent waaye full permanent employment waaye full time waaye sidoo kale xas inuu ka sheekeynaya responsibilities ka qofka waxyaabaha laga rabo marka inaa hoos u socotid waa wax badan u ogaatid marka shaqada aad rabtid aad ku dhufatid qaybta hoose u dageysaa employment groups-ka yani inta sharaxaad dheeri waa kana who can apply marka who can apply to this job yani shaqadan yaa apply gareyn karo shaqadan kaliya waxa apply gareyn karo qofka citizen Canadian-ka ah ama permanent residency-ga haysto waxaan ku ogaan kartaa waa akhrinaysaa qoraalkan akhrinaysaa sidoo kale waxa kale ku fahmi kartaa calaamadan gaduudka ah calaamadan gaduudka ee ku soo saarto miinis waxa waaye dadka localka bisa apply gareyn karo dadka banaanka ma apply gareyn karaan waa simple waaye qoraalka meesha ku jira hadaa luqadda taqaanid qoraalkaas akhrinaysaa marka waa fahmi kartaa qofka loogu talagalay inuu apply gareeyo iyo yacni dadka aan loogu talagelin haddii qoraalku kugu adag yahayna calaamadaasito waxaa ka dhigataa astaan oo gaduud ah marka hadana baaga soo dhaanay waxaan kaloo raadineynaa mid kale oo yacni aan apply gareyn karno oo qof walba u furan yahay inuu apply gareeyo sidoo kale waxaa muhiim ah luqadda Englishka inuu ku bilaaban yahay ama Faransiiska sababta shaqooyinkan inta badan luqadaha uu ku xiran yahay soo teknolojiyadana fiirinayna hadeertaan computer science-ka qofka yaqaana ama IT-ga verified waaye okay detailkeeda gobolka laga shaqeynayo oo saacadiiba $30 lagu shaqeynayaa full time waaye okay
detailkeeda meesha ka shaqeynaysid waxna saacad inta ku shaqeynaysid waxaasoo dhan way xilliga la bilaabay start as soon as possible ku qoran. marka anyway intaan waa sharaxaada oo yacni detailka shaqada meesha laga shaqeynayo waxaa soo koobayaa. waxaan maleynayaa iyadana inaan wax badan ka fahmi doono. haddana waxaa usii soconeynaa hoos responsibilitieska qofka waajibaadka laga rabo intaa lagu soo koobaa, yacni waxyaabaha aad qabanaysid inaad dokumentiyada iyo reportyada aad diyaarin kartid, sidoo kale supervisorka inaad caawin kartid, sidoo kaleeto inaad qiimeyn kartid, estimate ku sameyn kartid costiga iyo materialska loo baahan yahay, sidoo kale contractiga inaad maxaa la dhahaye marka waxaasoo dhan uu u baahan yahay. yacni responsibilitieska waxyaabaha la iska rabo, waajibaadka la iska rabo waxaa qabanaysid experience-gaaga. marka intaasoo dhan English inaad fahansan tahay waaye, intaasoo dhan aad aqrin kartid. marka hoos usii soconeynaa yaa soo codsan kara shaqadaaneyto iyadan inaan isla ogaano waaye. faa'iidadeeda iyo caafimaadka waxyaabahaas oo dhan. okay, hoos u soconeynaa marka. waa kana marka who can apply to this job. marka shaqadaneyto waxaa apply kareyn karaa lagu leeyahay Canadian citizenka iyo sidoo kale permanent residency dadka haysto iyo other candidateska. yacni haddeertaan shaqadan way yacni dadka localka ah iyo dadka banaanka labadaba way codsan karaan. marka sida aan soo sheegnay waxay ahayd dadka localka markii loogu talagalay calaamada guduudku soo saara. marka hadda calaamadan oo worldwide kan aad ku fahmaysaa in yacni qof walba uu apply kareyn karo. marka waxaan u maleynayaa inay wax badan ka fahanteen. ugu yaraan qofka hadda sulaqada fahmaynin sida uu kala fahmi karo who can apply-ga ku dhufanay. waxaa ku dhufanay how to apply, sida loo apply kareyn karo by email ku apply kareynaysaa. emailkaas ku codsanaysaa shaqada markaas aad rabtid oo adi xaq u leedahay. haddii shaqadan oo yacni la apply kareyn karo oo localka bis loogu talagalay haddaa apply gareysid means waxaa kuuma soo jawaabi doonaan. laakiin haddii fursadan adiga ay kuu banaan tahay markaas oo tii adiga kuu banaaneed aad buuxisid waa lagu soo jawaabi doonaa insha allah. waxaan rajeynayaa inaad nasiibkiina aad ka roonaan doontaan oo aad ku guuleysan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. sharaxaadeedana intaas aan kusoo koobeynaa. waxaan rajeynayaa su-aalihiina ay soo weydiiseen kasoo hadal in aad wax badan ku kala fahmi doontaan. see yacni aan u apply kareyn karaa, xaq ma u leeyahay in aniga apply gareeyo, iyo sidoo kaleeto seen ku fahmayaa midka aniga lagu talagalay oo ina apply gareey iyo midka lagu talagalin. ina wax badan ka fahmi doontaan. please mar walba waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saartaan, sida muuqaaladeena kale oo la socotaan, gambaleelkana furataan, like iyo commentiskana noogu roonaataan, saaxiibadaadana inaad la wadaagtid. insha allah waxaan idinka rajeynaynaa mar walba oo dhiirigelintiina iyo garab istaagiina waa noo muhiim. wixii kale oo su-aale ah qabtaan ama wixii aad jeceshihiin waa naga soo codsan kartaa qaybta commentiska noogu soo qor, ama gruubyada kaleeto aan ku jirno sidoo kale ayagana waa nagu soo gudbin kartaa. qofkii rabo gruubyada inaan kusoo daro insha allah isagana wuu soo codsan karaa si wixii information iyo wixii su-aale wixii commentiskana xaggaas aan kula wadaagno. alxaq wala adimaya. marka waxaan idinkaga sii tagay sidaas iyo nabadgelyo. balanteenu waa subscribe-ka, like iyo share-ka insha allah. bye bye.